بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنو كسو هذا حديث كيني تطبق إلا باتنات هذا وحنو جعلنا نكاذا حديث كيني سديد إلا باتنات أدو إله قدر إن شاء الله. وحاولي كان سيدتان عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه. أما واحد وآخرين كرتا عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أما اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، حديث حسن صحيح. حديث كان وحو كهدليا دردارنكا waxaa laga wariyay Abu Najiih al-Irbaad ibn Saariya, Allah kara la naqday inuu yiri: waxaana wacdiyay rasuulkii Allah nabadgelyo naxariistushiisa Allah iyo la wacdi qalbiga dhalaaliyay oo indhahana ka ilmeysiiyay. markaasaan ku niri rasuulkii Allah, wacdigaagani wuxuu u eg yahay wacdi sagootin ah ee inoo dardaaran. markaasuu yiri: waxaan idinkula dardaarmayaa cabsida Allah casiiska ah ee weyn, iyo maqal iyo adeecida madaxdiina, xataa haddii uu madaxiinu yahay nin adoon ah. ninkiina noolaadana wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan. si aad uga badbaadaan khilaafka, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad raacdaan jidka nebiga nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allah yeele, iyo jidka khulafadiisa hanuunsan. allaha ka wada raali naqdee. jidkaa ku dhaga oo goosaha ku qabsada, kana digtoonaada arrimaha soo diran, yacni arrimaha soo cusboonaan doona. maxaa yeelay wax kasta oo diinta lagu soo daro ama lagu soo dheereeyay ama lagu ziyaadiyo waa bidco. bidcaduna waa baadinimo ama lumitaan. qofkii ku socdaana waa ahlu naar. marka xadiiskan waxaa wariyay Abu Daawud iyo at-Tirmidhi, wuxuuna yiri xadiiskan waa xadiis xasan ah oo saxiix ah. marka xadiiskan wuxuu inoo cadeynayaa arrimo kamid ah kuwii nabiga nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay u dardaarmay ummadiisa. waxaanu ku wacdiyay wacdi qalbigooda dhaqaajiyay, wuxuuna kula dardaarmay in ay Ilaahay ka cabsadaan oo ay ku dadaalaan dhowrida iyo ku dhaqanka sharciga. wuxuu taray in amarka dawladda, wuxuu taray amarka dawladda islaamka dhaqankeeduna yahay in la adeeco, xataa hadduu yahay ninka madaxda ah qof adoon ah, mar haddii aanu wax diinta khilaafsan idin faraynin. marka wuxuu xadiiska ka waramayaa waxyaalo dhici doono oo ah ninkii noolaada inuu la kulmi khilaafyo fara badan, waana ay dhacdayo. marka wuxuu yiri nabigeena suubanaa nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeele: haddii waxaasi dhacaan, raaca jidka nebiga nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeele iyo khulafadiisa hanuunsanayd ku joogeen, yacni ay soo joogeen. khulafada waxaa loola jeedaa Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. jidkaas baa xaq ah ee ha lagu dhigo. taa ayaan ku dardaarmi lahaa. ciddii haysatana halala garab istaago, halala garab iyo gaashaan noqdo. wuxuu uga digay in ay ku kalsoonaadaan waxyaalaha diinta lagu kordhin doono oo aan ka mid ahayn. marka
ama in yacni laga naaqusin doono oo ah bidcaduna waa baadi. yacni bidco waxaa naqan kara diinta wixii ka baxsan sunnada oo nabigeena xadiisyadii laga wariyay, axaadiistii sunnada ahaa iyo kitaabka wixii kasoo haray labadaas qofkii yacni labadaas wixii kasoo haray la yimaada waa bidco ee ku dhaqma. taas uu ka hadlaya xadiiska. marka bidcada waxaa loola jeedaa waa taas, in ilaahayna lagu caabudo wax aanu jidaynin oo aan nebiga farin, sida wardi aanu nebiga sheegin inaan ku wardino, ama waxaa kaloo ka mid ah salaad aan yacni lagu farin inaad dukato, ama waxaa kaloo ka mid ah in aad u jeesatid meel aan qiblada ahayn, oo yacni aan dhanka qibladaba aan ahayn inaad u jeedsato, ama meel aan ama aad yacni u dawaaftid meel aan kacbada ilaahay ahayn iyo wixii lamid ah. marka bidcaduna waa laba nooc oo bidco lagu gaaloobay, sida ku dawaafida qubuuraha ama baryada owliyada mootan iyo gargaar ugu wacadshadooda, yacni inaad gargaar weydiisato dad dhintay oo waxba aan kuu tari karin. iyo bidco aan yacni lagu gaaloobayno midna waa taasoo waa lagu gaaloobayaa dad aan waxba kuu tari karinoo qubuurada ah inaad ku wareegato, in dad dhinta aad wax weydiisato, taas waa shirki. mid aan lagu gaaloobayna ha yeeshee laakiin dembi ah, sida carabaabida niyada salaada in aad tiraahdo usalli farada salaati iyo wixii lamid ah, waa hadday yacni dadka masaajidka jameecada ku dukanayaan shaki ku abuureyso. marka yacni markaad ku kacayso fal cibaado ah, marka waa inaad ogaatid halka uu falkaas salka ku hayo, maxaa yeelay cibaado ma ahan inaad iska fashid sidaad jeceshahay, ee waa sida lagu faray oo allahna soo dejiyey nebigana ku faray. haddiise laakiin aad ilaahay ku caabudo wax aanu ku dirsan waa tacab khasaaray. haddii if iyo adduunba waad ku khasaartay. marka iska hubso inaad dhowdahay oo camalkaaga la socodsiisid sharciga islaamka runta ah. marka waxaa jiro faa'iidooyin aan ka dhaxli karno xadiiskan. waxaa ka mid ah in ilaahay la dhowro sharcigiisa, in yacni amarka dowladda islaamka ah ee wax xukumaysa la adeeco, haddii kale fidna inay dhacayso. marka khilaaf ku bato xagga diinta ah waa in la raaco jidka rasuulka nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee iyo qolofadiisa. dadka ku camal fala bidcada abaalkoodu waa tacab khasaar ifka iyo cadaab aakhira labadaba, maxaa yeelay wejigaa lagaaga soo tuurayaa camalkaada, aakhirana waa lagu ciqaabayaa, sababtoo ah intuu yacni weydaartay jidkii rasuulka ayuu ku camal falay cibaado aan la farin. inkastuu uu isleeyahay kheyr baad helaysaa, wuxuu la mid yahay qofkaasi sidii isaga oo yacni leh jidka rasuulka ma fiicna ee aniga jidka fiican oo ilaahay kuu dhaweynaya sameynaya, jidkaas baana naarta geeya qofka, walciyaadu billaah. intaas ayuunu kusoo koobayna xadiiskeeni 28aad. intaynu kaga gudbayna xadiiskeeni 29aad oo walaashina allah dartiis idin jecel. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودع الله الذي لا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنو كسو هذا الحديث كيني 27 هذا وحنو جعلنا نكو هذا الحديث كيني